waxay ku qaadatay muddo 36 sannadood ah in uu wadiiqo yar uu ka dhex samaysto 3 buurood oo aad u dhaadheer qof ku dhici kara inuu halkaasi gaarana jirin. waa marka aadanuhu uu ka faa'iidaysanayo awooddiisa iyo wakhtigiisa isla markaana uu naftiisa u sameeyo hadaf uu hiigsanayo tiyo ay ka go'an tahay inuu ka midho dhaliyo. Hong Dafa waa ninka aynu ka hadlayno ee u dhashay waddanka Shiinaha. 36 sano ka hor ayuu dubbihiisa u qaatay si uu buuraha dhaadheer dhinaca amaba sinta uu uga kala jeexo si uu suurtagal uga dhigo meel dadku ay maraan, buuraha isaga kala gudbaan isla markaana biyo la cabo ay tuulada ay u hesho. waxa uu ku noolaa tuulada lagu magacaabo Kuwanagba ee dalka Shiinaha. tuuladu waxa ay la liidatay oon iyo haraad. jidka kali ah ee biyaha lagu gaari karo ayaa noqday in la jeexo oo ilaa iyo 10 buurood dhexdooda oo goosgoos ah kuna yaala 3 taag oo aad u waaweyn, ishuna ay ku wareerayso laga qodo. dowladda Shiinuhu dhulka waa ay ka quusatay inay nolol ay ka abuurto, wayna iska dhagamariyeen oo iska ilaaween, laakiin dadkii tuulada gaar ahaan ninka fikradda dhaliyay ee Hong Dafa ayaa go'aansaday in ay iyagu ay isku tashadaan oo biyo la cabo tuuladu ay u helaan. waxa uu isku dubaritay ilaa 100 raga oo tuulada ka tirsan si ay u bilaabaan qodista jidkan oo dad badani ay ku tilmaameen jidkii geerida. qaar badan oo dadka Shiinaha ka tirsan ayaa shaqada uu ninkani bilaabay ku tilmaamay waali iyo soo jeedriyood, laakiin fikirka ninkan uu aaminsanaa iyo kalsoonida uu naftiisa ku qabay inuu ka midho dhaliyo waxa uu hiigsanayay ayaa marka aad u sii fiirsato ku soo xasuusinaysa erayadii heestii Hayaankuma meel fogba ee uu abwaan Maxamed Xaashi Dhamac Gaariye Allah u naxariistee uu lahaa. ninka buurta roobku helay gunteeda ka heesayow, fikteeda nolol habboon. hadda maanta waad aragtaan waxa jidka adeegsada isla dadkii waalida ku caayayay Master Dafa. hogaamiyaha tuulada ama nabadoonka mashruucani ku hogaaminayay xitaa iskuulka kama dhigan wax ka badan dugsiga hoose, laakiin waxa uu haystay wax ka weyn buugga iyo qalinka, taasi oo ah karti iyo ujeedo cad ilaa uu ku guulaysto, waana uu ku guulaystay aakhirkii. dadka sida qulqulka ah ugu soconaya jidka dhuuban ee maraya buurta sinteeda korka kolka laga soo masawiro waxaa ugu dhaaranaysaa quraanjo meesha dhabo ka samaysatay oo gurigeedii u hoyanaysa. jidku waa sida maska oo kale, waliba mas leh midabka qalinka. ma aamini kartid jidka ayaa waxaa lagu sameeyey 5 farood iyo calaacal iyo waliba dubayaal amaba buris. waa se dhacday oo waa taa maanta lagu caanamaalay. tiimkii wadiiqadan gacmaha ku dhistay iyagu wax xoolo ah kamaysan helin, laakiin wax ka wanaagsan lacagta ayay maanta ay haystaan, taasi oo ah magac iyo taariikh iyaga oo dadkooda uga tegay amaba qaarkood ay uga tageen dhaxal waara. jidka dhuuban ee la marayo waxaa dhinac socda tog yar oo kanaal ah oo biyo qulqulayaan, kaasi oo ka dhashay isla dhismaha jidkan gacanta lagu qoday. buuraleydani waxa ay qani ay ku ahayd biyo meel dheer ka soo daadanaya oo dabiici ah iyo qurux, laakiin waxay u baahnayd meel loo maro si biyaha iyo baadka loo gaaro tuuladana loogu soo leexiyo. maanta waxaa soo booqda dad aad u fara badan si ay biyaha soo dhacaya ay isaga soo tuuraan kuna dabaashaan iyaga oo sawirro iyo video ka samaynaya. ilaan qiimaha dhulku waa dadka tuuladii cidlada ahayd ee beri lala'aa biyo la cabo maanta waa goob dalxiis oo China iyo adduunka kaleba ay ku xisaabtanto si fiicanna u camiran. Master Huang waxa uu dhaxda uu isaga xiri jiray xarig dheer oo adag si uu gebiga buurta u raaco oo uu halkaasi u qodo isagoo uu dubbihiisa sita. wadada ama wadiiqada yar ee uu halkaasi uu ka qoday waa mid si qurux badan ugu wareegsan buurta. waa arrin caado iyo dhaqan ka ah dalka Shiinaha in buuraha ugu dhaadheer dushooda la dego oo tuulo laga aasaaso ilaa ay ka noqoto magaalo weyn meelaha qaarkood. jidkan oo gaaraya 9.4 kilomitir oo dhererka ah kolkii hore waxa ujeedkiisu uu ahaa in uu noqdo kanaal biyuhu ay soo raacaan si dadka tuuladu ay uga cabaan. hase yeeshee xilligii qodista ayaa waxaa ka dhalatay fikradda ah in lagu dhinac lamaaniyo meel wada yar ah oo ay dadku ay maraan. hadda labada siyoodba waa looga faa'iidaysanayaa in kanaalkaasi uu waraabiyo magaalada iyo in isla halkaasi ay tahay jid loo maro dhulka aan la gaari karin si loogu dalxiiso. tuulada intii aan biyaha laga helin waxaa laga beeran jiray galey iyo bataati, laakiin kolkii biyo qulqulaya oo aan kala joogsi lahayn ay heleen waxa ay beerteen bariis oo ka mid ah dalagyada ugu biyo cabista badan inta geed la beero oo dhan. dhererka kanaalku waxa uu dhulka uu ka sarreeyaa ilaa 300 mitir,
ka sokow inta dadka deegaanku ay biyaha ay ka haqabeeleen hadda waxaa sanadkii u soo go'a 400,000 oo kiilo oo bariisa kaas oo dakhliga shakhsiga ee dadka deegaanka soo gala kor u qaaday waad ku mahadsantihiin sida wanaagsan ee mar walba aad noola socotaan Bulqaas Media ayaad nagala socotaan fadlan haddii aad ku cusub tahay page-ka Bulqaas Media ha ilaawin inaad like iyo follow aadna soo tiraahdo haddii si aad tahay macmiil soo noqday sidoo kale ha ilaawin in muuqaalkan aad share garayso oo asxaab badan aad la wadaagto si iyagana asxaabtooda kale ay ula wadaagaan wixii tale iyo tusaale ah waxa aad noogu soo qori kartaan dhinaca commentiska aad ayaad u mahadsantihiin rabbiga ha idinla jiro assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu